السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كل وعنا وناكسر ميلو بدكو سوغتين كل سنة وهذا برنامج كحولك ورركا وذهبي والبكدا وطان شبكدا ورركا ورقاة تيوب داوديال ولا باتاكا بيش الشراد إيماي سنة لبدا كون سقالي تبكا برنامج كحولك وسو قادنا ورركي وربحنا وقود بيا يقود أهم دالكا قد بدا أنا عاود داوديال برنامج كأنه كسو قادت دوننا وحا كم من نقدونا dowladda waddanka Kenya oo soo saartay go'aan kale oo daandaansi u ah dowladda Soomaaliya kadib markii ay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya u diiday inay galaan magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya. waxaan idin soo gudbin doonaa olole kale oo baraha bulshada iyo qaar ka mid ah warbaahinta waddanka Kenya ay saacadihii la soo dhaafay si weyn markaasi ay u wadeen kaas oo ay ku sheeganayaan qaybo ka mid ah Soomaaliya oo ay ugu horeeyaan deegaanada Jubaland. qodobada kale ee aan daawadayaal barnaamijkeedii ugu soo kordhi doona waxaa ka mid noqon doona maxaa ka jira wararka sheegaya in wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya mudane Goodax Barre xilka qaadis uu wajahayo. madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxa uu ku wajahayaa waddanka Shiinaha waase maxay ujeedka uu waddankaas ku tagi doono. qodobada kale ee aan daawadayaal barnaamijkeedii ugu soo gudbin doona waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha dalka mudane Xasan Cali Khayre oo kulan aan caadi ahayn la yeeshay wakiilka midowga Yurub ee arrimaha dibadda oo safar aan la shaacin ku timid magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. sidee ayay maamul goboleedyada dalka uga falceliyeen sharcigii batroolka oo ay ansixiyeen xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya xilli sharcigaas uu khilaaf xoogan ka taagnaa. barnaamijka ayaan idinku soo gudbin doonaa qodobadaas iyo kuwo kale ee daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka xulka wararka. وهاجاك داوديال واردقو سو dhaweynaya shabakada wararka ee warqaa tiyub ayna ku bilaabano barnaamijka. Kenya way xoojisay daandaasiga ay ku wada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo arintan loo arkayo in ay tahay dagaal diblomaasiyadeed oo si hoose Kenya ay kula jirto Soomaaliya. wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa loo diiday inay galaan magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya sida ay noo xaqiijiyeen ila waraadyo lagu kalsoon yahay. mas-uuliyiinta ayaa watay baasaboorka diblomaasiga ee Soomaaliya balse saraakiisha garoonka diyaaradaha Nairobi ayaa ku gacan saaray iyaga oo lala xiriirinayo arintan dalku galka fiisaha oo gabi ahaanba loo diiday. wararka ayaa intaa ku daraya in Kenya ay gabi ahaanba ay joojisay in wasiirada iyo mudanayaasha Soomaaliya ama shaqaalaha Soomaaliya ay siiso dalku galka waddankeeda walow aysan kala cadeyn sababta arintan ka dambaysa. xogta ayaa waxa ay tahay raacinaysaa in mas'uuliyiinta qaarkood ay adeegsadeen baasaboorka wadamo kale oo shisheeye oo ay haysteen taas oo ugu dambeyn ay ugu gudbeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi. saraakiisha socdaalka garoonka Nairobi way diideen in baasaboorka diblomaasiga Soomaaliya iyo ka shaqaalaha ee serviska ay saaraan dalku galka mana aysan noo sheegin sababta ayaa laga soo xigtay mid ka mid ah xubnaha dowladda ee garoonka diyaaradaha magaalada Nairobi lagu qashqashaaday. tani ayaa ku soo aadaysa xilli xiriirka labada dowladood uu markaasi madmadow xoogan uu ku dhex jiray tan iyo markii shirkii shidaalka Soomaaliya London uu dhacay oo lagu soo bandhigay qiraadka dalka Soomaaliya. dadka u dhuunduloola arrimaha siyaasadda ayaa tallaabada Kenya waxay ku macneeyeen mid ay ku kordhinayso cadaadiska diblomaasiyadeed maadaama dacwad ka dhana badda oo labada wadan ay ku murusan yihiin ay taalo maxkamadda caalamiga ee qaramada midoobe. horaantii bishan ayay ahayd markii Kenya ay hakisay duulimaadyadii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi. talabadaas oo burisay heshiisyo ay hogaamiyaasha labada wadan ku kala siixdeen magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhigiisa waddankaasi Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale waxa ay isku maandhaafsan yihiin doorashada madaxtooyada ee Jubaland taasoo bisha Agoosto ee sanadkan ka qabsoomi doonta magaalada Kismaayo. xukuumadda Muqdisho ilaa iyo haatan wax jawaaba kama aysan bixin tallaabooyinka ay dowladda waddankaasi Kenya ay qaadayso gaar ahaan tii ugu dambeysay ay ugu diiday wasiirada iyo xildhibaanada inay galaan magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya iyagoo wata baasaboorka diblomaasiyadda iyo ka shaqaalaha ee dowladda Soomaaliya. dhinaca kalena qaar ka mid ah saxaafadda waddankaasi Kenya gaar ahaan kuwa baraha bulshada isticmaala
ayaa si weyn waxa ay 24 saac ee lasoo dhaafay ay u baahinayeen muuqaalo ay duubeen koox dhalinyaro oo markaasi ku doodaya in qeybo ka mid ah Soomaaliya ay leedahay dowladda waddanka Kenya. waxaa baraha bulshada lagu faafiyay muuqaal ay duubeen aqoon-yahano Kenyan oo qurba jooga kaas oo ujeedkiisu yahay in colaad iyo xiisad siyaasadeed looga dhex abuuro wadamada Kenya iyo Soomaaliya. dad badan ayaa si weyn u naqdiyay muuqaalkan oo si weyn ay ugu caroodeen Soomaalida oo ciwaan looga dhigay Somali colonizing Kenya using Musungus, wuxuuna salka ku hayaa arinta muranka badda ee u dhexeeya labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliya oo dacwadeeda taalo maxkamadda caalamiga ee qaramada midoobay. dhalinyaradan soo duubtay muuqaalka ayaa Soomaaliya ku eedeynaya iyada oo kaashanaysa dalal cadaan ah ay markaasi gumaysan rabto Kenya siday hadalku dhigeen ayna doonayso in ay boobto badda Kenya, waxayna ku doodayaan hadallo been abuura oo ay ku sheegayaan haddii maxkamadda cadaaladda ay hogaamiso in Soomaaliya ay leedahay badda lagu muransan yahay taasi horseedi doonto in Kenya ay noqonayso dal aanan wax badan lahayn. waxaa kaloo dooda ka mid ahaa dowladda Soomaaliya ay doonayso inay xoog markaasi ku qaadato qaybo ka mid ah dhulka iyadoo kaashanaysa garsooraha Soomaaliya asal ahaan ka soo jeeda madaxda ka ah maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ. dhalinyaradan waxay si weyn uga doodayaan in qaybo ka mid ah Soomaaliya ay leedahay Kenya, waxaana ka mid ah Jubbaland. waxay sheegayaan in ay qasab tahay in dowladda Kenya ay ku doodo in Jubbaland ugu soo celiyo dhulweynaha waddankaasi Kenya. waxay si weyn uga faaloonayaan in Jubbaland ay qayb ka ahayd deegaanada NFD amaba waqooyi bari waddankaasi Kenya oo hadda waddankaasi Kenya ka tirsan. arrimahan oo dhan waxay ku soo aadayaan xilli dowladda waddanka Kenya iyo cadaadis xoogan oo dhinaca diblomaasiyadda ay ku hayso dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo si weyn uga naxsan go-aanka maxkamadda cadaaladda adduunka ay ka soo saari karto muranka badda ee labada wadan u dhexeeya maadaama Soomaaliya ay si weyn uga gacan sareyso. وهاجاك داوديال شبكة ورarka warqaad TV ayaad ka daawanaysaa barnaamijka xulka wararka. wafdi uu hogaaminayso wakiilka sare ee arrimaha dibadda iyo siyaasadda amniga ee midowga Yurub haweeneyda la yiraahdo Federica Mogherini ayaa maanta soo gaartay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka. wafdigan ayaa waxaa garoonka Muqdisho ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad iyo xubno kale oo dowladda ka tirsan iyadoo ay taa kadib loo galbiyay dhinaca madaxtooyada Finland Soomaaliya. Federica Mogherini ayaa waxay kulan Muqdisho kula yeelatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxaana ka wada hadleen qodobo dhowr ah waxaana ka mid ahaa horumarkii ay dowladda federaalka Soomaaliya ka sameysay dib u habeynta hay'adaha dowladda iyo kaalinta midowga Yurub ee howlaha dowladda Soomaaliya horyaala sanadkan 2019. haweeneydan waxay ka mid tahay madaxda sarsare ee caalamka ka socota ee soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si ay u arkaan isbedelka dalka ka jira. ra'iisul wasaaruhu wuxuu madaxa arrimaha dibadda iyo amniga ee ururka midowga Yurub iyo ururka midowga Yurub uga mahadnaqay taageerada joogtada ay la garab taagan yihiin ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed. wuxuu tilmaamay inay Yurub ay tahay saaxiibka ugu weyn oo ugu horeeya ummadda Soomaaliyeed leedahay aadna u garab istaagay dhan kasta rumaystayna in Soomaaliya ay horumar gaari karto waqti ay dad kale iyo dalal kale ay arrintaas shaki ka qabeen. marka arrintaas ayuu ka mahadnaqay. wuxuu tilmaamay wixii horumar dalka ka suurtagalay dhanka siyaasadda, dhanka dhaqaalaha iyo dhanka amniga. wuxuuna rajeeyey in xiriirkaasi uu sii socdo u dhexeeya dadka Soomaaliyeed iyo ummadaha Yurub ama ayagoo sii maraya ururkooda iyo dowladda Soomaaliya. Mogherini iyaduna sidoo kale waxay tilmaantay siday ugu faraxsan tahay inay timaado xamar, inay Muqdisho timaado, inay Soomaaliya timaado. waxay aad u ammaantay horumarka Soomaaliya ka socda iyo guulaha u suurtagalay dhan kasta. waxay ballan qaaday
inay European Unionku uu garab taagnaan doono ama midowga Yurub inuu weligiis garab taagnaan doono ummadda Soomaaliyeed si uu u dhiiriyo ama u sii socoto horumarka uu dalku ka gaarayo dhanka dhaqaalaha, siyaasadda, nabadgelyada. Waxay tilmaantay inay Soomaaliya leedahay hoggaan siyaasadeed oo wanaagsan oo dhab ka tahay in dalku uu horumar gaaro, in Soomaaliya ay ka gudubto waqtiga adkaayo ay soo martay. European Unionkuna ay diyaar u yihiin in arrintaas ay gacan ka geystaan inay garab istaagaan. waa hagaag daawadayaal qaybihii dhexe ee barnaamijka ayna soo gaarnay cadaadis xoogan ayaa saaran wasiirka waxbarashada dowladda federaalk Soomaaliya. wararka waxay tilmaamayaan in wasiirka wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare xildhibaan Cabdulaahi Goodax Barre uu wajahayo cadaadis xoog leh oo kaga imaanaya mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, gaar ahaan xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. warar ku dhow wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxay tilmaamayaan in mudane Cabdulaahi Goodax Barre uu markaas sheegayo in hadda markaasi ay suuragal tahay in xilkiisa uu waayo. wasiirka ayaa waxaa haysta eedeymo waaweyn oo gaf ah, islamarkaana ay soo gudbiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland. arrinta ayaa sicirka isku sii shareertay kadib markii wasiirka waxbarashada dowladda federaalk Soomaaliya uu shaaca ka qaaday in imtixaankii fashilmay uu ka dambeeyay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug State. dowladda federaalk Soomaaliya ayaa wajahaysay cadaadis xoogan tan iyo markii uu fashilmay imtixaankii qaran ee dugsiyada sare. waa hagaag daawadayaal, madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa waxa uu markaasi kusii jeedaa wadanka Shiinaha. wafdiga madaxweynaha ayaa waxay gaareen magaalada Addis Ababa, waxaana la socday qaar ka mid ah wasiiradiisa uu ka mid yahay wasiirka ganacsiga iyo kan maaliyadda. Siciid Cabdulaahi Dani ayaa waxa uu safar shaqo ku tagi doonaa wadanka Shiinaha. ugu dambeyntiina daawadayaal, sharcigii batroolka ayaa ay ansixiyeen mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya. arrintan waxa ay sii xoojinaysaa khilaafkii u dhexeeyay maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. warkan waxa uu farxad u yahay dowladda, laakiin maamulada kuma faraxsana. xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa ku dhawaad 154 mudane oo ka mid ah waxa ay soo xaadireen kulankii uu shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Muudey. sharcigaas oo ay maamulada qaarkood ka soo horjeesteen ayaa waxaa ogolaaday 150 xildhibaan xilli ay ka hor yimaadeen 4 xildhibaan oo kaliya, mana jirin cid ka aamustay. tan ayaa ka dhigan in aqalka hoose uu meel mariyay xeerka labaad oo ay qaadaceen dowlad goboleedyada, maadaama sabtidii ansixiyeen sharciga qaybsiga kheyraadka. maamul goboleedyada ee dalka ka jira ayaa durba markaasi si weyn uga jawaabay arrintan, ayagoo sheegay inaysan ku faraxsanayn go-aanka sharciga batroolka. waa hagaag daawadayaal, intaas ayaa kusoo gabagabay doonaa barnaamijkii xulka wararka. barnaamijka lamid aynu ku kulmi doona waxaan idinka tegayaa sida ay nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.